بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسو دوادا waxaa idii haynaa caawa insha Allah haduu ilaha idmo bishii barakeysan Ramadaan ku jirnaa walaal mawduuc wuxuu ku saabsan yahay bisha barakeysan sidee loo niyeystaa dad badan ayaa soo weydiiyay way fududahay sida uu niyeysan lahayd qaabka uu niyeyso waa ogtahay waxaa jira afarta madhab yani niyadoodu waa lagu kala macnaha mashquulsan yahay oo mid mid ka hadlaya waxaa la doonayaa sidaan uu faanto casharkeenana markaan ku soo dhawaada sidaan ayaan ku fiican adiga walaal صوم 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 بشهر رمضان صوم ومسألة مفيدة مهمة إن كستو مسألة والبهي وقفكي دانين ينفعي ستردد كنا ينفعي قفين ينفعي المسألة ذا المالي وحيت هاي إنه مركي إنه نهي شافعيا نهي مذهب كان وحوي هاي مسألة سياسة تلفيق ينقال نقوانا سيفي عن قفل بهوكو بيه haddaad wax isaga kacayo maan cidna ha eedin hadhowtadii markaynu shaaficiyanahay anaga waxa madhabkanagu yahay imaamu shaafici wuxuu leeyahay hameen kasta ee kamida bisha ramadaan inaad niyadiisa la timaado bari inaad soomaysan niyeysataa waajib weey xadiidka saxiixa ah imaam muslim kitaabkiisa saxiixa uu ku soo saaray ana sidaa ku cad oo imaamku xadiidka saxiixa muslim uu xujaysanay marka leeyahay oranayo imaam shaafici ay madaasa saxiix muslim xujaysta ama saxiix al-bukhari macnaheedu uu dhadhamiyo imaam muslim iyo imaam al-bukhari shaafici way ka dambeeyeen xadiidka hadda kitaabkan lagu qoray baa imaamkaasi qaatay waay ee imaamkana kitaabkan wax ka qaatay ma nin kitaabkan ninka qoray imaamkii waa ka dambeeyay imaam shaafici wuxuu xujo uga dhigay in hameen walba niyadu waajib tahay xadiidka saxiix ah oo inuu saxiix yahay imaam muslim oo kitaabkiisa saxiixa ku qoray oo ah man lam yubayyit as-siyama fala siyama lah qofkan soomka bariidaysiinin oo inta hameennimo soonkii qalbiga ku qabane ma soomana waa soomkii faradkaana ka waramaya uu soomka faradka hameen walba inaad niyadiisa la timaado oo aad bari inaad soomaysan niyeysatahay waa waajib imaam shaafici leeyahay xadiidkaas ana ku cad saxiixa imaam shaafici wuxuu leeyahay xadiidkaas wuxuu ku cad yahay hameen kasta in laga rabo inaad niyadiisi bari inaad niyeysato caawa inaad niyeysato bari inaad soomayso xadiidkaana ku cad waana saxiix xadiid doodi kuma jirto inuu saxiix kow haddana madhabkanagii shaaficiya waxaan fasax u qabnahay imaam shaafici wuxuu noo fasaxaya oo madhabkanagu yahay inaan sidaas si kasii dadaal badan samayno madhabka shaaficiya waxa la yiraahdaa a'dalul madahib madahibta midka ugu dhaxdhaxaadsan midka ugu cadaalada badan la yiraahdo waana la ogyahay oo xambaliye iyo xanafiye iyo shaaficiye iyo maalikiye saddexda madhab kale waxay ogyihiin oo ay qirayaan inuu yahay madhabka shaafici madhab kulligood madahibta wada saxiix weey laakiin madhabkaas a'dalul madahib madhabka ugu dhaxdhaxaadsan wuxuu a'dalul madahib ku qaatay aimada kale imaam walba ijtihaadkiisa fahamka sidoo kitaabkiisa sunnada u fahmo ku tagay xagga ma dhaafay laakiin madhabka shaaficigu wuxuu yahay oo qawaacideeda kamida hadii aad imaamku wuxuu leeyahay anigu saan aan u fahmay imaamkaas kale in la raacana waa qumanta imaamka kale ma ogole أحمد بن حنبل شيخي سوى وحوي فقه شريعة المحمدية وحا شيخ إمام الشافعي شيخي سيا مرة أرانا يفهم ككتاب كي سنة سيد أفهم حديث كسيد أفهم أبو أحمد بن حنبل ليه ما شيخي إلى رعاها بنمناهي إمام مالك وحويا وحا كوينا وكوي يلسان أبو حنيفة ما أرانا يا أبو حنيفة سيد الشيخي إلى رعاها قبان أرانا ماي لكن إمام مالك إمام الشافعي ليه أنا وسانا كتاب مسألة وفهمي شيخاس كلا سيده وفهم إلا راعنا ويقومنتها يولي سيدان واحد المذاهب كوي markuu isagu fahamkiisa loo sheego anuu saanan u gartay iraada aniga in la raaca kali khasama ka sheeqaas kale oo khilaafayna in la qaataahi way qumantahay haduu dadaal dheeraad sameey imaam maaliga wuxuu leeyahay marka oo fiirso imaam shaafici masaladiisa markaan ku sheego ku yiri habeen kasta laga rabaa xadiidkaana ku cad imaam maaliga wuxuu leeyahay waxa waajiba وانا شيخ الشافعي امام الشافعي شيخي سيوي امام مالك با وحو ليهي همينك بشهر رمضان اي كوتاي وحا واجب قفكي رمضان لغو ليهي انو همينكاس نييسو مالمها رمضان كانو دن انو سوماي رمضان كان مالمه سو دن انو سوماي انو همينك كواد نييستا كو واجبه امام مالك با سدا اورانيو سدا سو نصوص فهمكيسو عبري markaas imaam shaafici wuxuu leeyahay anigu waxaan u gartay sida xadiidku ku caadiyay habeen kasta in la niyeysto inay waajib tahay sheekayga in la raacana waa qumantahay habeen kaas la wada niyeysto isku duub loo niyeysto
habeenkaa in la niyeysto bisha ramadaan maalmaheedoo dhan in la soomo inuu qofku niyeysto oo imaam maalik lagu raacaahay waa quman tahay anigu saanaan u fahmayu leeyahay markuu fahamkiisii noo sheegay uu leeyahay aniga in lay raaca qasab ma dhahayo sheekayga in la raaco waa quman tahay oo la yiraahdo habeenkaas maalmaha ramadaankan oo dhan inaan soomaan niyeystay anoo imaam maalik ku raacay oga waa taqliidan cala al-imaam maalik madhab aduu shaafiiciyada shaafiiciyana masalada ma qabta Soomaa imaam shaafici uu leeyahay sheekhaas in lagu raaco masaladaas aqoon asaga lagu raaci ma imaam shaafici lagu raaci ma masalada ogow imaam shaafici fahamkiisa waa hameen walba laga raba laakiin wuxuu yiri sheekayga waa lagu raaci ka waa qumanta in lagu raaco markaas aad maxay yeeli aduu shaafiiciyada marka Soomaalida waxa markaas la rabaa waxa ku wanaagsan marka shaafiiciya tahay habeenka bisha ramadaan ku tahay inaad niyeysato maalmaha ramadaankan oo dhan inaad soomayso adoo imaam maalik ku raacaya imaam shaafici ku raaci ma sida ogow anoo shaaficiyahan saas niyeysta laga yeeli ma hi masaladu shaaficiya ma anoo imaam maalik ku raacaya warka waxaan ugu noqonayaa imaamka masalada qaba waa inaad ku raacdaa anoo imaam maalik ku raacaya maalmaha ramadaankan oo dhan inaan sooman niyeystay inaad tiraahdaa waa qooqmanta haddana markaas adila shaaficiya tahay nawaytu sooma qadin ku dar bari inaan soomo ramadaan han u soomana waan niyeystay markaas waxay ku taraydaa habeen walba niyeyso ila shaaficiya tahay habeenkii niyadii aad hilmaanto waa iska dhacdaa ogow habeenna niyadii hilmaantaa habeenkaas maalintiisa soomku waa ku jira sabilowgeed reer maalik noqotay nadiif waxa ajab le fiirso arkimis habeen walba niyeyso habeenka niyadii hilmaantay maalinteeda soomku waa ku jira sabilowgeed reer maalik imaam maalik wuxuu ku raacday soomka nadiif waa maalinta haddaadan habeenkii koowaad niyadaas la imaanna maalintan soomku kuma jiray noqon lahayd hadhowteena qadayda laga rabaa soo bixilay مسألة كلام كسي دريا لماذا مسألة أجاد شافعية ده بريا صومية رمضان هذا صومية أنا إمام الشافعي كراعي به ما أولاد به شافعي أولاد رأسنا لكن مركز الذي بري مالمها رمضان كصور رمضان كان مالمي صورنا صومان يستي أولا شافعية ده إن إمام مالك كراعي ده وين كقيدا شافعي لما قبل مسألة يدي من كدرا يا واحد تاني هذا هذين كوال علفوا يلان إن نياس لا تماد أضو إمام مالك راعي هذين كان عاوان عاد هالمانتو ويجي كابر يأذن نيسن صبكم مجرى عند الشافعية وعند مالك وأحمد أنا قدر مالنت صم السمري إمام مالك نمص أكتيس كما سمري إمام الشافعي أكتيس كما سمري حنبلنا قدر أبو حنيفة كوسي دمان أبو حنيفة وحليه هي مال صام كسنة يصام كفرد كواسكميدو برقدي على ودني سكر الله warka u fiirsa Abu Hanifa wuxuu leeyahay sunnada kaliya ma aha farad kala gelinka hore waa la niyeysan karaa Abu Hanifa haddaad marka cala faadaru yeelan inaad habeenkii koowaad Maaliki noqoto caawana niyadii ku dhaafto waagi ka bariyado niyeysan intaad baanta soo la'aan noqon lahayd Abu Hanifa masalada ku raac hadda barqadaan niyeystay anoo Abu Hanifa ku raacay hadda niyeystay anoo Abu Hanifa ku raacay warkaas Ilaahay ka baqo iyo kacay yummi Shaafiiciyada idin iska haanaya Ramadaan kan oo dhan inaan Soomaaliyeeyso waa been ma jirto Shaafiiciya san ma qabtay Maalikiga qabay ku raac warka dhilimi Shaafiiciya marka leedahay bishaan maalmaheedo dhan aan soomaya Shaafiiciyadii xagga dhigato Maalikiga noqotay ogow wayna Maalikiga noqotay markaad taas nasiib u yeelan ee aad leedahay saakan niyeystay in Ramadaan hadda barqadana niyeystay in Ramadaan inaan soomo Maalikina ma qabo Xanafina ma qabo Hanbali ma qabo Shaafiicina ma qabo Xanafiya ku raac ولا بد تقليدا على الإمام مالك المسألة دي هنا تنضمن تقليدا على الإمام أبي حنيفة هذا مركب وحسكو عي يبتاع هذا العلوة كوك العدي أبو وإن الإمام كمسألة قوة إمام كمسألة قبائل تكون على الأبودوي أدو هذا المجتهد هين إمام كمجتهد كهم مسألة قبائل تكون على واي أدو الإمام كراعينا المسألة دي يليا إذا أدو ما مجتهد ما عمل كان صحيح ما يا تاي أدو مرك هرت يا فهم ككون راعي إذا فهم ككتابك السنة يا تكون راعي شافعي مية تكون راعي وإن هذا سجر راعي أو قلات إلى مقلد للشافعية وحنبلي المسألة تكون راعية أدو فهم كجهير كمجال سنة نين كان مسألة ككينية وإن المقلد لأبي حنيفة لمالك
وواجب تغليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم وأن كما مارمان واجبي أفرتان مذهب مد كمذا إن مسألة قرع عن سجود واجبتك مسألة النية الصوم كوفا فحصل ساس لوا ساس أي تهاي هذا مركز كوعي يبتو ودي هذا إسكاله دم تاسيال لكن مسألة والإمام كقبا قرع هذا سيدا على بصيرة طريقة أوقات وبالله التوفيق ولا أعلم.